السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا إنه جعلنا هاي كحرا بوجا ميد ما حتى سعيد حاجة أفرح يكاليه سماها جامع كورنتو مركلة اسكسو دوا شفيعا كسو دوا ذا أنا حسابتي دبو بالله بدونا dadka qaarna ay naga soo codsadeen inaan videoga oo muuqaal ah duqa oo toos ah in la soo geliyo marka waan bilaabinaa insha Allah wad mahadsantihiin haddaba maanta waxaan ku bilaabaynaa maanta waxaan rabaa inaan ku bilaabo dad badan waxa dhibta isku dhufashada tirada isku dhufashada ayaa dhibta laakiin maadaama haddana ay leedahay oo موبايل laga isticmaalo calculator-ka laga isticmaalo calculator caadi yani ma iska fududaatay haddaba waxaan rabaa tirada lambar 9 aftalyaaniga soo dhah arabtan maxay dhahdaa 9 yani lambarka 9ka tiro marka lagu dhufto adigoo aan calculator isticmaalin maskaxdaadana wareena sida ugu fiican ee aad jawaabta kuugu soo bixi karto maanta qaybtaasaan bilaabaya waxaan ku bilaabi doonaa laba tiro hal tiro laba tiro saddex tiro intaba marka daawasho wacan horta barnaamijkeena muxuu ahaa waa miid maaxatay taariikhdana maantana waa 5 bishii 9aad 2019 waaye waxaan soo bilaabayaa bal u fiirsa isku dhufashadan lambarka 9ka tusaale haddii 6 lagu dhufto 9 intaad raadin lahayd calculator waxaad samaysaa sida ugu fudud 6da ayaad ka jaraysaa hal 6 haddii hal laga jaro maxay noqonaysaa 5 waay 5 markaad joogtid marka maxaa 9 ii keenaya haddii 5 tiro lagu daro 9 ii keenaya waa maxay 5 haddii tiro lagu daro 9 keenaysa waa maxay waa 4 marka macnaheedu 6 lagu dhufto 9 waa 50 iyo 4 bal fiir sida u fududahay waay aan fiirino number kale afar lagu dhuftay 9 afar lagu dhuftay 9 waay afar halka go afar ama halka jar waa 3 okay 3da dhigo waay 3 haddii tiro lagu daro ku keenaysa 9 waa maxay waa 6 macnaheedu marka waa 30 iyo 6 -1 ha iloobina waay tiro kale intan aan iska masaxno tiro kale haddii 5 lagu dhufto 9 maxay noqonaysaa 5 haddii lagu dhufto 9 okay halka go waa 4 markaad haysato maxay noqonaysaa tirada 9 ku keenaysa markaad 4 haysato waa 5 sama macnaheedu waa marka 40 iyo 5 bal sidii u fududahay fiir sidii u fududahay ay u noqonayso wax fudud oo easy ah u fiir tusaale kale haddii 8 lagu dhufto 9 maxaad samaynaysaa 8 halka go -1 wuxuu noqonayaa 7 waaya 7 markaad haysatid maxaa 9 ii keenaya tiro haddii 7 lagu daro waa 2 soo ma okay maxsuulka markaa muxuu noqon 8 lagu dhufto 9 72 bal fiir sidii u fududahay waaya hadda waxaan isticmaalaynaa waa hal tiro oo 9 lagu dhuftay markan waxaan tijaabinaynaa laba tiro sida ay ku noqonayso haddii laba tiro lagu dhufto 99 ilaa hadda waxaan baranay hal tiro oo lagu dhuftay 9 hadda laba tiraan fiirinaynaa marka aan si fiican u fiirsano waxay noqon doontaa
tusaale 37 lagu dhuftay 99 37 lagu dhuftay 99 maxaad samaynaysaa u fiirso 37 hal ka jar hal un ka jar 37 hal ka jar maxaa kuu soo haraya 36 waay maadaama laba tiro tahay tiradan ugu horeyso waa 3 maxaa 9 ii keenaya tiradan ugu horeyso maxaa 9 ii keenaya 3 haddii tiro lagu daro 9 ii keenaya maxay tahay 3 marka tiro lagu daro maxay noqonaysaa 6 okay 3 6 ku dar 3 6 ku dar maxay noqonaysaa 9 haye 6 haddii tiro lagu daro 9 ii keenaysana maxay noqonaysaa 3 marka macnaheedu wuxuu noqonayaa 37 haddii lagu dhufto 99 waxaa soo baxayso 3663 kalkulatorkaa doontid isticmaal sidaa doontid u isticmaal intaasoo baa kuu soo baxaysa mar kale aan tusaale kale keenno waxaan dhihi karnaa aan dhahno 1 2 3 1 2 3 waa 3 tiro lagu dhuftay 999 markii hore waxay ahayd hal tiro laba tiro bal 3 tiro fiiri 123 lagu dhuftay 999 soo kuguma dheeraanayso calculator ma haysatid maskaxda iyo caqliga 123 hal ka jar waa 122 waay tirada walbaba tirada koowaad tiradeeday leedahay ta labaadteeda ta saddexaadteeda adigoo hal haystaa maxaa kuu keenaya 9 waxaa ii keenaya 8 lagu daro hal waa 9 waay adigoo laba haysta maxaa ii keenaya 9 laba lagu daro waa 7 soo ma 9 tanna waa sidoo kale 2 7 macnaheedu wuxuu noqonayaa marka 123 lagu dhuftay 999 maxay 1 2 2 ama hal 2 2 8 7 bal u fiirsa marka sidai u fududahay waxaan rabaa marka tirada 9 waan wadi doonaa iyadoo badan hadda isku dhufashada qaybtii koowaad hal tiro oo aad og tahay 2 tiro 3 tiro halka tiro xusuustahay soo bah tusaale ahaan 5 lagu dhuftay 9 5 halka go waa 4 markaad haysatid maxaa 9 kuu keenaya 5 macnaheedu wuxuu noqonayaa 45 waa hal waa 2 waa 3 tiro oo 9 ka ah aada u mahadsantiin waxaan rabaa intaanan ka bixin hal sheeko inaan ku gabagabeeyo waa aqaanaa Soomaali mahadow yani filmku duubaya saaxiibkii mahad Soomaalidu waa daadshay waa dhameeyey waa garanayaa wax walba ayay yiraahdaan xitaa iyagoon garanaynin hadda ka hor nin ayaa waxa la yidhi shaquu meel u doontay markuu shaqada tegey ayaa ninkii il adeegiisa laga yaabay il adeeg wax kasta waa aqaan markii dambe su-aala la weydiiyey waxaa la yidhi diyaarad ma wadi kartaa yacni ma kaxayn kartaa diyaarad wuxuu ku jawaabay ninkii ma diyaarad hadda ma diyaarad haddii aan sidii aan ogaa laga bedelin waa kaxayn karaa kule marka dadow xisaabtan haddii sidaad ku ogeed aan ahayn abta hanugu dhigane salaamu calaykum like garee sheer garee insha allah lana soco qeybaheeda kale